waftidan ballaaran oo hogaaminaya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cadde isla markaasina ay ku helinayeen xubno kamid ah golaha wasiirada Soomaaliland iyo barasaabka gobolka Togdheer ayaa galabta goor gaaban soo gaadhay magaalada madaxda gobolka Togdheer ee Burco. waftidan ayaa markay soo gaadheen qasriga madaxtooyada gobolka Togdheer waxa warbaahinta la hadlay barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Ibrahim Aadan Qabyatire waxaana uu si faahfaahsan uga warramay ujeedada waftidaasi iyo socdaalka ay u yimaadeen haatan magaalada Burco. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. haddaan soo galay oo arkaysaan waftigan ballaaran ee ka soo kicitay Hargeysa. waftigan madaxweynaha soo diray ana waan la socday. waftigani waxa uu ka kooban yahay 5 wasiir waxaanay u yimaadeen u kuurgelida arrimaha gobolka. waxa waftigan kamid ah oo hogaaminaya wasiirkii arrimaha gudaha Cali Waran Cadde, waxa kamid ah wasiir Cadami, wasiirkii Gaashaandhig, waxa kamid ah wasiirkii cadaaladda Cadare, waxa kamid ah wasiirkii wasiir duulistii hawada Axmed Faahiye, iyo waxa kamid ah waa 5 wasiir. 5 wasiirba waxay u socdaan arrimo ku saabsan xagga nabadgelyada oo gobolka. kulay waxay nala joogi doonaan 3 cisho. 3 cisho waxaan u kuurgali doonaa xaaladda nabadgelyada gobolka, haday tahay tajiida xuduudaha iyo haday tahay tan gudahaba. wixii laga bilaabo barina waxaan idin siin doonaa wixii warbixina. habeen dambe kulay afro ayaan la yeelan doonaa odayaasha magaalada wala la shiri doonaa. kulay meelahaas ku kooban. si kastaba ha ahaatee waftidan ka kooban xubnaha wasiirada ayaa la filayay in maalmaha soo socda ay joogi doonaan magaalada Burco, isla markaasina ay kurgali doonaan xaaladda nabadgelyada gobolka iyo sidoo kale xuduudaha gobolka Togdheer ee dhanka Soomaaliland kala wadaagto dhinaca Itoobiya. waa Maxamed Xuseen Ismaaciil Maxamed Mooto, telefishinka caalamiga ee Bulsha TV, magaalada Burco.